السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواد وقتين مقعي واقين خضر ظاهر كانت ترسن أرضية اللابروتريجا تيم كلابروتريجا maanta oo bishu tahay 18 bishii sagaalaad 2019 maanta waxaan soo jeedinaa buug wada magac baxay Food for Today. buugan haddaan ka sheekayno gabadha qortay ama cidda qortay waa gabadhaas oo la yiraahdo Helen Kautaluk. gabadhaas oo baratay fakalka loo yaqaano nutritionka taasoo dhigan jirtay jaamacadda la yiraahdo Case University. gabadhani waxay dhimatay 2004 dabiiqadeedii. buugan waxa ka tijaabiyay gabadhan 16 aqoon-yahan. gabadhan buuga waxay ka daabacday company loo yaqaan McGraw Hill Company oo ku taala USA. very few times baa la daabacay buugan waxa kamid ah 2006 2004 ilaa 1977 buugan kolba dib habeen baa lagu sameeyay. buugan hadeen u baahana waxaan ka heli karnaa America laga helay United States of America waxa kale oo laga helay adiga online ku iibsada. waxa buugan uu ku haboon yahay hadaynu eegno secondary-geena ardayda secondary-geena wuxuu ku haboon yahay ardayda form 2 waayo muxuu ugu haboon yahay wuxuu ugu haboon yahay maadada loo yaqaan biology-ga chapter kamid ah ka hadlaya biological molecules and balanced diet. buugana cuntu ka hadlaya chapter-kaasna wuxuu ka hadlaya balanced diet-ki marka waxaan oran lahaa ardayda form 2 ayuu anfacaya buugani. waxa kale oo anfacaya buugani arday qof doonaya wadan aan wadankiisa hayn inuu tago oo cuntadiisa si barto si aan markuu meelaha u tago aanu oran isii alxoox baastaysi marka alxooxdoodii wuxuu baranayaa cuntooyinkoodii. buugan hadaynu gudaha u sii galno wuxuu ka kooban yahay 10 unit oo waaweyn. 10 unit ka koobnaaday ama waxa weeyaan 55 chapter buu ka kooban yahay. waxa kale oo ka kooban yahay 768 page buu ka kooban yahay. hadaynu bilowno unityada hadaynu yar ka taabano ma wada taaban karna maanta dhan 768 page waqtiga oo dhan buu naga qaadanaya. hadaynu buugan tafaasiil ka yar bixino unitka koobaad waxa weeyaan food in your life uu ka hadlaya kaas oo hoos imanayaan 4 chapter. chapter-ka koobaad waxa weeyaan the amazing world of food. the diversity of the table baa ku xiga kala duwanaanshaha cuntada kala duwan tahay waxay ku xiran tahay dhaqankeena kala duwan oo imka qofka China jooga Soomaaliland haduu imaado cuntadeeda ma cuno waayo haduu gaal hilibkii ma cunaba haduu doono oo wuxuu cunaa big doofaarkii buu cunaa waxa cunaan China wax kale cunaa ama Ethiopian haduu yahay wax kale cuni kara way kala duwan yihiin marka cuntooyinkii. waxa kale oo ka hadlaya food supply buu ka hadlaya waxa kale oo ka hadlaya food science and technology. hadeen cutubkeena labaad u imano cutubka labaad wuxuu ka hadlaya nutrition basic waxyaabaha nafaqada lagu ka hadlaya. waxa uu horeysa nutrients at work waxa ku xiga carbohydrates ka hadlaya wuxuu yahay carbohydrate binoo sheegaya carbohydrate-ka sida digestion-keena uga qayb qaato meelaha carbohydrate-ka ka helayna buu sheegaya. waxa kale oo inoo sheegaya protein-ta iyo fat-ka waxay yihiin meelaha aan ka helo cuntada aan ka helayna sheegay digestion-ka sida uga qayb qaataan. waxa kale oo ka hadlaya vitamins iyo minerals. waxa kale oo ka hadlaya water and phytochemicals. waxa kale oo inoo xiga unit saddexaad wuxuu ka hadlaya health and wellness. health and wellness buu ka hadlaya wuxuu ka kooban yahay 4 chapter oo yar yar waa nutrition guidelines sida uu ilaalin lahayd nafaqadaadii sida weight loss-ka overweight-ka aad iskaga ilaalin lahayd buu isna ka hadlaya. iyo wuxuu ka hadlayaa kale health challenges caqabadaha hor imanaya caafimaadku ka hadlaya. hadaynu u tagno cutubkeena afraad ama unit 4 wuxuu ka hadlayaa food decision kaas wuxuu ka hadlayaa 6 chapter oo yar yar 6daas chapter waxay kala yihiin eat patterns vegetarian food choices meal planning shopping for food serving food etiquette. unitkeena shanaad wuxuu ka hadlayaa kitchen basics preventing the kitchen accidents inaad jikada ka ilaaliso waxyaabaha accident-ka keenaya ama sidii inuu gubto jikadii in electricity-gu uu short kugu kaco kala biyaha inaad ka ilaaliso waxaas uu ka hadlaya. waxa kale oo ka hadlaya food safety and storage inaad cuntada jikada la keenay inaad daboosho oo kale inaad talaagad kurdooda ilaaliso si aanay u xumaan oo kale. waxa kale oo ka hadlaya acquiring the kitchen inaad jikadii qalabayso oo haday u baahantahay maanta la soo iibiyo shoolad hadii la soo iibinayo cuntada lagu karsado inaad u soo iibiso inaad food preparation-ka wax toolska ka qayb qaadanay inaad soo iibiso oo kamid yihiin deewalka aan wax ku cunno oo waxa kamid oo kale microwave-ki wixii roodhida ama beedkii waxa lagu sameeyay keega. cutubkeena lixaadna wuxuu ka hadlayaa the art of cooking habka cuntada loo karinayo buu ka hadlayaa. preparation techniques waxa kale oo ka hadlaya cooking method wuxuu ka hadlayaa creative additions iyo in la ilaaliyo preserving food at home in la ilaaliyo cuntada guryaha taala.
cutubkeena toddobaad haddaynu galno food preparation buu ka hadlayaa. Food preparation waxa hoos yimaada 10 chapter ba hoos yimaada. Wuxuu ka hadlayaa fruitski, vegetables-ki, poultry-gi, egg-gi, wuxuu kaloo ka hadlayaa fish and shellfish. waxa kaloo ka hadlayaa beverages kuna waxa weeyaan waxyaabaha drink ama cabitaanka ah ee warshad soo mara ha ahaadaan biyo ama sharaab ha ahaadaan ayuu ka hadlayaa. waxa kaloo ka hadlayaa cutubka 8 ee unit 8ka food combination cuntooyinka la isku dardaray buu ka hadlayaa oo ka mid tahay sandwichki, pizza-di, saladki iyo casserole kuna waxa weeyaan waa cunto inagu ma cunno laakiin waa cunto inta waxa laga sameeyaa flour daqiiq baa laga sameeyaa sweetsna waa lagu daraa ama waxa lagu daraa waxyaabo dhan oo ku darsan kartaa. waxa kaloo ka hadlayaa unit 9ku the art of baking habkii aad u sameyn lahayd waxyaabaha daqiiqda ka samaysan. daqiiqda marka waxaan oran karnaa waa quraaci, roodhidi, keegi, waxyaabahaas aad u sameyn lahayd buu ka hadlayaa. unitkeena toddobaad ka hadlayaa chapter buu ka soo qaatay America cuntada laga cuno iyo Canada. waxa kaloo kamid ah Latin America iyo Serbia cuntada laga cuno. waxa kaloo kamid ah Eastern Europe iyo Russia cuntada laga cuno. waxa kaloo kamid ah North Africa iyo Sub-Saharan Africa cuntada laga cuno. buugan marka waxaan oran karnaa intaas oo chapter buu ka hadlayaa. aniguna intaasan kusoo gabagabeynaa intaan idin sheegay. Assalaamu calaykum. السلام عليكم مرة هوري دمانتي وايد سلامي waxaa idinku sugan bartan teamkii library-ga qayb kamid ah wala teamkii oo dhameystiran maaha qayb kamid ah teamkii library-ga kuwaas oo buugan food for today la yiraahdo u qaatay inay soo koobaan ama ay uga faa'iideeyaan bulshada inteeda kale waan ognahay dadkeenu inta badan waxay akhristaan wixii fiilkooda soo gala ama ha dhigtaan jaamacad ama iskuul ha dhigtaan waxay akhristaan wixii manhaj ku saabsan ama syllabus laakiin taas way ka duwan tahay marka aad aqoon guud qaadanayso waxa loo baahan inaad skill lahaato ama xirfadiina waxay ku xidhantahay inaad taqaano waxyaalo badan sida cunto karintii marka buugan waa la noo soo sharaxay intii gebigiisa baan idhaahdee cidii qortay waxyaaluhu ku saabsan yahay marka bal waxaynu gelin doonaa su'aalana inaan tibinu ka weydiin doonaa buugan inoo soo akhriday waxa kale oo sameyn doonaa laba discussion baynu gali doonaa laba qodob baynu ka doodi doonaa insha Allah inta aynu ku guda jirno barnaamijka marka haddaan ku bilaabo su'aalaha iyada aynu ku horeysiinayno waxaan ku dhanka ka soo bilaabi doonaa dhanka hablaha marka waxaan ku bilaabi doonaa Amal su'aasha koowaad weydiinaysa qani بسم الله magacaygu waa Samson Maxamed Cabdi anoo ka socda ardayda library-ga waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal weydiiyo qani su'aashaas oo ah maxay faa'iido inoo leeyihiin cuntada dibadda bismillaah haddaan su'aasha ka jawaabo cuntada dibadda lagu sameeyo waxay faa'iido inoo leedahay imka hoteelada first classes-ka waxay yaqaanaan cuntooyinka Soomaaliland laga cuno kale waxay fiicneed inay keensadaan chief ama dabaq u sameeya cuntooyinka caalamka si ay dadka caalamka ka yimaadaan oo hoteelada wax uga cuni karaan waxa kale oo ay faa'iido inoo leedahay imka dalkii haday imaadaan dad madaxa oo dibadda ka yimaaday oo markay madaxweynaha u tagayaan cuntadoodii loo sameeyo ka helayaan wadankii waxa kale oo ay noo faa'iido tahay markii imka aan anu doonayaan caalamka tago cuntooyinkiisa waan garanaya qofna idee waxba igama hor imanayaan ma oranayo kaali waxa ma lahayaa maanta wax kasta waan garanaya la cuni karo marka su'aashaasi ku dhantahay waxaan u gudbi doonaa insha Allah su'aasheena labaad buugan waxaanu ka weydiin doonaa bal waxyaalaha inoo muhiimka iyo inanta buugan bay imika inoo sharaxaysa buuganna wax badan kama garanayno marka bal su'aalaha liftarkiinu go'aanaysa in idinku weydiisaan ayaan inagu weydiin doonaa marka idinku hadad wax kala haysaan insha Allah nagu dari doontaan su'aasha labaad ku soo dhaweynaya waxa weeyaan Yaxye su'aasheena labaad ha weydiiyo isaguna waxaan weydiinay anigu imika waxa jirta dadkeenu waxa jira dad cudur qaba sida imika gaastirida oo kale macaanka oo kale marka dadkaasi cunto walba ma cuni karaan waxa jira cuntooyin haday cunaan dee cudurkii garaasa ku kicinaya marka qofka akhristii ma ka faa'iideysan kara sidii uu iskooga ilaalin lahaa ama adigu xog ku saabsan arrinka ka heli kara buuga qofka xanuunsanaya haduu cunto doonin gaastirida oo kale hadaynu soo qaadano uu ka helayaa cunto cuno oo wuxuu ka helayaa horta qofka gaastirida waa inuu biyo badan cabo
waa inuu haysta dairy product waa waxyaabaha caanaha oo kale marka qofkii markuu akhrinayo wuxuu ka arkayaa inuu dairy productsku ay yihiin waxyaabo faa'iido leh marka gastridiina way ka caawinaysaa qof dadka marka xanuunadoodii way kala tacalluqi karaan buugan way aad u maasantay su'aashan hadda ku noqdo weydiiyay inaan ku dadkeenu badankooda waa dad wada bukaan socda badanka dadku marka qaar ba macaan qaba qaar ba gastri qaba laga yaabaa marka waxa laga helayaabay inatirinanta buugan food for today cuntooyinkii ku haboonaa xanuunadaas oo kale imka matalan marka su'aasheena ugu dambeysay su'aalaha hadaan ku noqdo laba su'aalood baan haray laba su'aashan waxa weydiin doona Axmed bismillah ana magacaygu Axmed Xasan oo ka socda fasalka 2A su'aasheedu waxay tahay dadka inta badan dadka intooda badan waxay iyagoo isku miisaaman oo dheeli tiran oo dhuban haddana ayaa waxaad arkaysaa dad iyagiyo calool ee ka soo baxday amba calool kuusani marka buugan ma laga helayaa si lagu hortagi lahaa bismillaah haddaan su-aashaa ka jawaabo haa waa laga helayaa wayn jawaabteedu koos dadkeenu waxay cunaanun laxoox baasto iyo bariis kuwaas oo carbohydrate ku badan carbohydrate hadduu kugu bato oo waxyaabihii kale balance diet-kaaga aanu balance ahayn xanuuna kugu dhici kara macaan baa kugu dhici kara hadduu carbohydrate-ka ku bato haddii milixdu macal ku badato dhiigkar baa kugu dhici kara marka aan waxaan oran lahaa wuxuu kuu sheegayaa buugani inaad cuntadaadii dheeli tirto oo balance ku noqoto si aan xanuuna kugu dhicin ilaahay ka soko aad buu maasantay qani hadaa ku yar noqdo bartaa su'aasha waxay noqonaysaa cuntadkeenu ma cunaan balance diet markaas taasa keenaysa inuu qofkii ama xanuunsado hadii buugan maanta oo dhan ka hadalo diinteeni ka tagno waxay noqonaysaa diinteena kaga horeysay buugan cuntooyinka sidii noo sheegay marka waxa jirta diinteena waxay noo sheegtay in cuntada saddex meelood loo qaybiyo caloosha nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam qayb in cuntada loo baneeyo qaybna biyaha loo baneeyo qaybna hawada sidaas cuntada caafimaadkeeda ku jira marka inagu ka hadlayna maanta sidii loogu baneyn lahaa diinteena noo sheegtay laakiin wixii la cuni lahaa isku balance gareysan si bulsho caafimaad qabta loo helo aynu ka hadli doonaa waxaan u gudbi doonaa su'aasheena discussion points ka soo hal su'aal baan inta ugu dambeysay su'aasheena ay weydiin doonto qani ay buuga ka weydiin doonto ku saabsan bismillaah magacaygu aanu yahay Shibcaan Aadan Jaamac waxaan qani weydiin doonaa buugani ma yahay buug la akhri karo oo ujeedadeedu tahay buugan aad buu u yahay ma naga tafsiri kartaa sida siyaabo wax loo akhri karo ama la akhri karo horta buug waxa loo yaqaan waa wixii le content glossary iyo index iyo credits marka haddaanu intaa buug lahayn horta ma akhrin karto wad ku dawaqaysaa marka buugani uu leeyahay intaas siyaaboodba haddaad doonayso inaad maanta akhrido kitchen basicska wixii ku saabsan ama indexka taysa ama contentka chapterkii oo dhan baad eeganaysaa page ku yaalo si fudud baad u akhrin kartaa marka waxyaabo marba wixii aad u baahan tahay markiiba waad soo saaran kartaa saasaana ugu wanaagsan aad u akhrin kariso haddaanu laakiin buug aanu intaa lahayn buug ma haban oranaya markii hore doctor imika waa inagii marka hore waxoogaa agrashaan ugu jirtay anaga laftirkayga imika wax soo wadi doonaa discussionka afkayga ka xaday maamuluhu waxaas leedayba anaguna sooga maamuluhu anagina sooga baan sidhibo discussion buu noogu jiray qodobkan uu ka hadlaya motion iyo opposition marka laba qodob baynu ka hadli doonaa discussionka intaynu ku guda jirno discussionkeenu wuxuu noqon doonaa su'aashu inoo bilaabi doono Yaxye dabeedna waxay inooga hadli doonaa laba hablood baan siinanaa oo ka soo jawaaba iyo labada inan iyo laba inan baan siin doonaa discussionkaas si yar wanaagsan noogu dhaco marka bal waan ku bilaabi doonaa discussion point 1 keena ayaynu u dhiibi doonaa Yaxye waxaan baalkii sidii qani noo sheegtay waxay tiri unitka u dambeeya wuxuu ka hadlayaa global foods ama cuntooyinka dunida oo dhan laga cuno badankeeda marka aanu waan akhriyo ardayda badankooduna inteedan mid kastaaba uu soo akhriyay buuga loo kala badnaado qani waa si fiican soo akhrisay marka Afrika qaaradda dhan Afrika inta soo wadan ka kooban wuxuu ka soo qaato kaliya koonfur galbeed oo kaliya cuntooyinka koonfur Afrika marka bal maxaa isleedin muxuu haayay waa looga reebay intii kale qaaradda wadamadii ku yaal macam shariyad ba ma inaga cunto caadi yani
haddii aan sababta kuu sheego waayo wadankeena ugu yaryahay sida ay imka Soomaaliland oo kale dee badankeeda lama ixtiraafsana sababtuna taa weeyaan inta looga reebaan filaya anigu haddaan raygayga ka dhiibto sababtu waa taas haddaan yara kale ku sii daro horta cunto waxaa ka hadla unta dadka lacag haysta unbaa oranaya maanta taasaan cunaya iyo tanaan cunaya marka Afrika ma aha dal dee cuntadii un mar kasta iyo ku jeeda maaha laakiin dadka kale naga hormarsan ayaa cuntooyinka aad uga shaqeeya taasaan oran lahaanu haddaan ku sii socdo doodeena waxay nagu yiri Yaxye imika wadanka quriye ee laga soo diray Afrika gabigeedu qaaradda inta laga aragteen inuu ku noolayde waxa laga soo diray waxa weeyaan South Africa ama Koonfur Afrika wadanka loo yaqaano wadankaasina wadanka xagga la eego ugu horumarsan qaaradan Afrika hadii loo eego imka wal qaar dhaafeen imka marka sababta waxaan isleeyahay anigu waxa jira inagu waxaan leenahay cunto wadani baa la yiraahdaa waynu leenahay aynu ku dhaadano mararka qaar walow imka aynu ka soo baxayna inuu soo ilaabana dhaqankeena marka cunto wadanidaasi lama abruuf kareyno si caalami loo ma abruuf kareen wala hada ay fiicantii hadii imka loo diro dhaqaatiir la baaro cuntada iyo waxay ku fiicantii waxaasoo hadii la baaro waan la abruuf kareen cuntada oo dhaqaatiir beenaan hel waxba noo meenaan hel Afrika badankeeda kale waxa laga cunaa ugaali baa la yiraahdaa baash inagu heeda iyo la isku dhaxdaro iyo shuurada taasa laga cunaa Afrika gabigeeda inta kalena inta madmadow inaga ugu yar cunto macano bariisga basta iyo soo raacin marka sababtaas ma islay hadaan u gudbo qodobkeena kale ee dooda waa qodob xasaasiya qodobkaas wuxuu noqon doonaa cooking issue weeyaan cuntada imika waxa la maraya 2019 qarnigii 12 Soomaa berigii hore dad bay ku koobneed cuntadu oo karin jiray marka inamadu waxay ku doodayaan waxay leeyihiin anagu niyo cuntada waxba naga ma gelin buugan waxba anaga nooga madanahay hablaha ay u dan yihiin buugan iyo habluuna markaa ka soo horjeeso doonaan oo waxay oran doonaan waa loo sinaado ma baqi ha loo sinaado marka bal Yaxye ku bilaabi doonaa wuxuu ka leeyahay deedna Axmed midna hablan ku wareejin doonaa horta imka saan ogsoonahay dood waxay khusaysaa dumarka doodaas oo ah in Yaxye uu sheegay in si gaar ah ay cuntadu u khusayso dumarka taana waxaan oran karnaa cuntada si gaar ah dumarku ma khusayso raguna waa inay kaalintooda ka qayb qaataan maadaama ayagu dumarkii looga dhigay mas'uul waa inay dumarkii ku gubaabiyaan sayid awlaadooda ugu karin lahaayeen balance diet iyo waxyaabihii nutritionka ay ubadku cuntooyinka kala kulmi lahaayeen marka taa macnaheedu waxa oran karaa ma aha dumarku khaasay cuntada khusaysaa balse raguna waa inay kaalintooda ka qaataan cunto karinta sidii imka linoo sheegayba waxa jirtay in caqabado ay ragga ka hor iman karaan si ay u xaqiijiyaan customka ama caadooyin ay Soomaalidu u leedahay in dumarka uu cuntada lagu cadaadiyo marka waxaan oran karnaa inagoo taa ka hortagayna imka maadaama buug dhano cunto karina ka sheekeynay ha u qaadanina in dumarku khaasay cuntada lagu eegayo balse idinkuna kaalintiina ka qaata saad cunto karintaas aad uga qayb qaadataan muhiimaduna idinka labadooduba si wacan bay doodii uga qayb galeen ahayd cooking issue-ga Yaxye wuxuu soo jeediyay wuxuu ku taliyay in ay xoog saaraan dumarku inay kariyaan walow aan ku raacsanayn maanta oo dhan hadal go'aan laakiin hadalkiiba in loo soo dhameeyo maadaama dad islaam oo Soomaaliyeed nahay in markay hawshu dhinaca kaga soo hagato Yaxye dhinaca uu ka gashay insha Allah mar dhow haduu Ilaahay ku gaarsiiyaba dhinaca uu ka gashay insha Allah marka saas inooga xirantay doodii iyo buugii food for today oo inoo soo jeedinayay Bani khadar ay noo soo jeedinayay buugii food for today waxa qaybtiisa kale lahaan doona oo 6 arday kale library-ga buug kala iyo qayb cusub insha Allah nagu sii doonto anigoo ah Qani Khadar Daahir kana tirsan dugsiga sare ee Al-Shad Secondary School ahna ardayda ka tirsan group laboratory-ga ama teamka laboratory-ga shaqeeya maanta barnaamijkan wadna waxa la yiraahdaa waxaan ku soo akhriga dhiganay ama qara'tu lakal kitaab maanta buugan akhriga soo jeedinay wuxuu ahaa food for today baa la yiraahdaa